Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Maanta waxaan ka hadlaynaa cudurka dhiig-kar. Dhiig-kar muxuu yahay? Dhiig-kar wuxuu yahay cudurrada midka ugu saameynta badan, kaasoo ku dhaca habsami socodka dhiigga xubin kasta oo jirka ka mid ah. Markii qofka dhiigga ku dhaco, maxaa sababa? Ma jiro cudur sabab looga dhigi karo, laakiin dhiig-karka wuxuu ka dhashaa qaar ka mid ah cuntooyinka, cusbada, sida daawooyinka khaldan ee jirka soo gala, iyo welwelka. Calaamadaha lagu ogaan karo maxaa ka mid ah? Calaamadaha lagu ogaan karo waxaa ka mid ah welwel in qofka lagu arko, daal in qofka lagu arko, inuu dhidido, inuu hurdo la'aan lagu arko, in gacanta oo baras noqoto. Maxaa lagu daaweeyaa? Daaweynta dhiig-kar eh. Dhiig-karka waxaa lagu daaweynaa marka horeeto waa inaad siisaa qofka daawada garaamkeeda aad u yar yahay. Haddii aad siisid daawo garaamkeeda aad u weyn yahay, qofkaas halis ayuu geli karaa. Waxaa ka mid ah daawadan Atanol, waa daawo aad u yar tayadeeda, garaamkeedana aad u yar yahay. Waxaad ka siinaysaa 50 milligaraam 10 xabo 1 × 1. Waxaa kaloo siinaysaa paracetamol xanuun baabi'iye ama qandho jebin ah, ileen qofka madaxa zaid u xanuunaa. 500 milligaraam 10 xabo 1 × 2. iyo Lasix oo kaada badiya ah. Halkan ayuu ku egyahay cashirkeena. Wabillahi tawfiiq. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.